واي دليا يوغندا جول كواد يوغندا ayaa la timid goolka koowaad ee ciyaarta wuxuuna ahaa gool kulaad ayay Uganda markaas dhaliyeen kadib gool kulaad laga dhigay Soomaaliya Uganda shabaqa ayay gaartay gool kulaad ayay markaas dhaliyeen ciyaartooyda xulka qaranka wadanka Uganda sheekaduna waa gool iyo eber Soomaaliya ayaa markan raadin doonta goolka barbaraha Uganda ayaa la timid goolkii labaad Bilision ayaa laga dhigay gool ay Mustafa Nakuja sheekadu waa laba gool iyo eber xulka qaranka Soomaaliya ayaa goolkii labaad laga dhaliyay Mustafa Nakuja ayaa markaas laga dhaliyay Bilision ama laad xara وكان مصطفى نكوجا Soomaaliya goolkii saddexaad ayaa laga dhaliyay waa 3 gool iyo waliba eber oo xulka qaranka Soomaaliya laga dhalinayo gool ayuu markaas yiri garsooru iyadoo Mustafa Nakuja gacanta markaas laga shaaftay ماما ياس محمود عبد النور ماما يا دليني جول فرحان ايا مركله كدلي جول xulka qaranka wadanka Uganda فرحان duqo ayaa kadali gool kale oo ka soo shaqeeyay mama فرحان duqo ayaa gool kale kadali Uganda waana goolkiisii labaad uu ka dhaliyo Uganda ayaa markan weerara waa laga saaro kubaddi Soomaaliya ayaa dhankeeda weerar markan Soomaaliya waa tan weerar ay ku jiraan fursad fiican afka hore dilinta ganaaxa ciyaartina waa ay dhamaatay saaxiibayaal Soomaaliya 3 gool iyo eber ayaa markaas looga adkaado kulanka hore ciyaartii ka dhacday dalka Djibouti hal gool kamid gool kulaad ayuu ahaa halka markaas 2 gool kalena caadi ay u dhaliyaan xulka qaranka wadanka